gebiya badan ayaa iyaga oo ku dayanaya raggii hore suugaanta dhararka iyo macnaha waxa uu yeelaa ma aha galka ay ku jirto oo kaliya waxa ay gabayadooda ku soo xusayaan erayo aanay dadkan imika fahmin hadalkooga iyo waxa ay rabaan inay sheegaan abwaanadii imika dhex marayaan abwaankii markii hore beesha ahaa imika wuxuu noqday mid siyaasi koox siyaasadeed بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك waxaan rajeynayaa inaad fiican tihiin waxaana mowduucan kaga hadli doonaa ama muuqaalkan aynu ku soo qaadan doonaa mowduuc aysan inta badan dadka Soomaaliyeed ka hadlin laakiin maanta laga hadli doono ama ka hadli doono kaas oo ah waxa loo yaqaan suugaanta kaynta ama suugaanta duurka ee Soomaaliyeed suugaan dareen wadareed xambaarsan laakiin dooq shakhsi ah oo ka maqan yahay waxaanu muuqaalkan kaga hadli doonaa in suugaanta duurka tu suugaanta kaaha in laga soo kaxaynay suugaanta duurka la keenay suugaanta ka la geenayo ee casriga haddaba si aynu faahno suugaanta duurka ee Soomaaliyeed sida ay ahayd aynu marka hore soo qaadana dadka Soomaaliyeed sidii ay yihiin ama sidii ay ahaayeen berigii hore deegaanka dhulka Soomaaliyeed ay deegaan waa deegaan oomane ah oo ah dadkiisuna yihiin dad guurguuraya ama reer guura ah waa dul sanadka intiisa badan geedi ku jira oo markasta xoolahooga meesha biyaha iyo baad kale ula guuraya meesha jilaalka ana ka guuraya waa dad had iyo habeen dagaal u jooga oo beel kasta beesha ku xigto cod la tahay iyaga oo isku dilaya geela kala dhacaya ceelasha kala qaadanaya iyo qarshintana ay kala riixanayaan waa dad qalafsan qalbi adag dhiiran oo aan dhimashada ka cabsan dadka Soomaaliyeed deegaana asal ahaan sidaas ay ahaayeen dhinaca kalena waa dad aan dhereg iyo dhalalaal midna korkooda laga dhuhanayn oo la muudo inta hilbahooda la saafay in misana la solay suugaanta deegaanka ka colatay hadaba in suugaanta ka timid deegaanka Soomaaliyeed oo noocaas ah waa mid dadkeeda u eg waa suugaan dadkeeda u eg waa suugaanti kaynta waa mid ciil iyo calooliyo ka buuxo suugaanta kayntu waa suugaan ciil iyo calooliyo ka buuxo haddana qab iyo qoorsi la ceeriyoonta waa suugaan adag sarbeebta sugurdaha iyo halxadaaluhuna ku badan yahay waa suugaan dareen wadareed xambaarsan oo dooq shakhsi ah ku yar yahay maxaynu hadaba ka wadnaa suugaantaasi dooq shakhsi ah ku yar yahay dareen wadareedna wadata suugaanta duruufaaska kan ee Soomaaliyeed ka dhalatay waa dhaxal ummadeed oo aynu leenahay oo u baahan in la kaydiyo meelna lagu hubsado la akhriyo lana dhigto sababtoo ah wax soo yaalkeena iyo sawirceena ummadnimo kamid ah suugaantaasi ayaan daradu waxay tahay in suugaantaasi maanta wali hormuud u noqoto ha fikirkeena maskaxeed inagoo duruuftii iyo deegaankii midna aan joogin maxaa ka wadatan waxa ka wadaa suugaantii Soomaaliyeed deegaanka aynu ka sheekeynay wuxuu ahaa deegaanka reer miyiga ah iyo qaabkii hore Soomaalida u noolaayeen laakiin maanta dadka Soomaaliyeed waxa ay soo galeen magaalada ilbaxnimo iyo waxbarasho baa timiday horena waa looga dhaqaaqay haddana wali suugaantii la tiriyay xilligii kala dhaca geela iyo inay qalafsanaantii iyo ceelasha la isku qabsanayay ayaa wali hormuud u ah suugaanta dadka Soomaaliyeed hodnu ah duruuftii deegaankaas iyo dadkaasna midna ma joogna imika haddana wali suugaantiis ayaynu si haysanaa waxa jira hadaba faacyo dhan oo akhristayaal iyo abwaano ah oo wali dhimbiisha suugaantani ay damqayso dhiigoodana u dhaqaajinaysa hal meeris oo qabyaalad oo bari hore la tiriyay ama mar hore la sameeyay ayaa maanta shacabka Soomaaliyeed uurkooda dhaqaajinayo oo ay tusaale u soo qaadaan waxa jira hadaba faacyo dhan oo Soomaaliyeed oo suugaanta u yaqaan gabay iyo geeraar oo kaliya gabay iyo geeraar waxa jira faacyo dhan oo humaaga raacatada iyo erayada abaaday ama erayada gabobay oo kaliya u yaqaan mahadho iyo murti haddii marka aad suugaan sameynayso ama suugaan meel soo dhigaysan baad akhrinayso haddii ayna suugaantaada iska muuqan erayo gabobay ama erayo hore oo waaweyn oo aysan dadku fahmaynin ama la moodayn bayna waxaan yahay suugaan aan la moodaynin suugaanta kaynta ama suugaanta duurku waa in taariikh ahaan loo daraaseeyo oo wax qiimo badan balse marka ay noqoto mid calan walaynaysa noloshan cusub isla markaasna ku dhex xafanaysa waa mid dhaawac ku ah wacyigeena casrigan magaalowgana inaga reebaysa markaanu suugaantii hore xilliga duurka la tiriyay markaas inoo aato hormuud iyo murti aynu eegano oo markaas nolosheena ku jirto waxay markaas ka dhigan tahay inay inaga reebayso nolosha casriga inaga reebayso iyo qaabkii cusub ay suugaanteena la jaan qaado nolosha ahayd inaga reebayso lana haraysa waa suugaan dareen wadareed xambaarsan oo dooq shakhsi ay ka maqan yahay si ay hadaba suugaanteenu la jaan qaado waayahan kaaha ee waanba waayahan casriga ah oo waayaha kaynta iyo duurka ay uga timaado waxa haboon in qodobadan wax laga bedelo qodobadan aan soo jeedin doonay wax laga bedelo kow kaalinta abwaankii hore wuxuu ahaa afayeen beelad xaalkiisuna wuxuu ku xidhiidhsanaa xaalka beesha uu ka dhashay gar iyo gardaraba beeshiisaas umbul ah beeshiisa guud farxad murugo colaad nabad guul iyo jab intaba
beeshiisa buu marna guusha kala gabiyay marna inay jabka uga gabiyay abaar iyo aaran iyo wax kastaba beeshiisa buu la lahaa sida sooyaal ku xusan waxa dhici jirtay in gabay abwaanka reerku tiriyay uu tolkii u cuntay way tusaalahan kale maanta ana gabay tolkii u tiriyay markaan tiriyo tolkii u sheego in gabaygaas uu cuntay way markaasna ku qasbaan inaad tiriso gabay cusub ay tayso in ka kalena uu soo tariyo markaas isaguna markaas daraadid waxa ay laba afayeen oo beelahooga uun ka turjumayo waayeen casriga ah iyadoo ay haddaba wali jirto tolnimadiina ay abwaanada saameyn ku leedahay haddana waxa halkii beesha iyo reerka iminka galay oo raadinta hal abuur ku leeyin kooxaha ururada aragtiyaha diimeed iyo dawladeed leh iyo siyaasadeed kuwaas markaa abwaanadii imka ay afayeen u yihiin iyaga u hadlaan kuwaas markaas duluucda hadalkooga iyo waxa ay rabaan inay sheegaan abwaanadii imka dhex marsanayaan abwaankii markii hore beesha ahaa imka wuxuu noqday mid siyaasi koox siyaasadeed iyo koox diimeed ka turjumaya uu noqday waxa abwaanka casriga ahi inuu noqdo jira madax banaan oo dhacdooyinka iyo qadiyadaha casriga ah soo bandhiga sida uu arko shakhsi ahaan iyo sida ay u saameeyaan shucuur ahaan inuu soo bandhigo oo abwaanku marka uu wax dareemo ama shay uu ka hadlayo inuu isagu shakhsi ahaantiisa u hadlo oo ka baxo markaas dareen wadareedkan uu soo gudbinayo balse ma haboon inuu noqdo microphone ay dad kale ka dhaxadlayaan oo maanta waxaana sii daranay in abwaanka Soomaaliga ahi marka uu gabay soo sameeyo markaaba cid kale laga dhax akhrisanayo markaas waa qodobkaasna wax laga bedelo qodobka labaad ee tahay wax laga bedelo waxa weyn kaalinta suugaanta sida ku cad buugga helimada maasadii hore ee uu qoray aw jaamac Umar Ciise Soomaalidii hore 16 ujeedo ay gabayga u tirin jireen suugaanta ay u tirin jireen ujeedooyinkaas waxa kamid ah daba faanka guubaabada amaanta geela gamaanka iyo kuwa kale taas waxay ahayd duluc la jaan qaadaysa xilligii waayahaas la noolaa oo tusaale kale markaan anu faras leeyahay faraskaygan amaanaya geel markaan leeyahay geelan dhamaanaya mar geel kala dhacay geela la kala dhacayan ka gabyaya markaas sidaas dheer hadaba maanta waxa fajaca casrigan ay noolnahay waxa fajaca haddii aan maanta tiriyo geeraan amaanaya fardaha haddaan tiriyo maanta fardiya halkii joogaan maxay nolosha ka yihiin maanta nasiib waxba kama aha sidaas daraaddeed way farasku maanta noloshiina waxba saameyn kuma laha saas daraaddeed waxa muhiim ah markaas qodobkaas laga gudbo lama fahmi karo marka cid aan u maansoonayo haddii aan qaabkii waagii hore u gabi jireen abwaanadii hore wixii ka gabiyeen iyo godadkii ay ka gabiyeen hadan mar kale maanta anigu ka gabiyo lama fahmi karo marka cid aan u maansoonayo ama u sugurdahayo hadalkayga lama fahmiyo awaanka casriga magaalada jooga haddana xilligan ka gabiya xifaalihii qarniyadii hore oogna sida geela iyo lo'da iyo ariga beeshayada ayaa beeshiina ka fiican ka gabiya ma garan karo markaas aqliga ka gubanaya abwaankaas ee uu maanta ka gabiya niga maanta ka gabiya in geela kala dhacay xoolo ari ka gabiya iyo qabyaalad ka gabiya dareenka ka gubanaya ma garanayo oo maanta wax kasta way isbedeleen oo inay dealkii waxa bedelay joog baa bedelay fandaalkiina waxa bedelay muqaacad baa bedeshay amba qaad baa bedeshay markaas noloshii markasta waxa ku wada transformation baa ku imanaya sidii weyn abwaanka casriga ay la jaan qaadaa halka markaas qolba noloshu marayso noloshu waa hayaan habeenka iyo maalintuna dharaar kasta waa ku cusub afku wuu koraya dadkuna way isbedelayaan deegaankiina kii hore ma aanayo oo markaas suugaantuna ay raacdaan ha fikirkiina sidoo kale waa iska diyay qodobka saddexaad ay tahay in suugaanta Soomaaliyeed laga bedelo si ay u qacaan qaado casrigan ka aha ama casrigan imka aynu joogno waa koobnaanta gudadka abwaanadii hore ee Soomaaliyeed marka ay gabayaan waxay ka gabi jireen laba gudumid badan ka gabi jireen oo waxa loo yaqaan gabayga iyo geeraarka inkastoo aynu soo yeelay ka aragnay gudad kale oo ay ka gabiyeen ama ay ka maansoodeen ama ay ka hawraaroodeen oo ay ka mid yihiin jeeftada ay naga soo gaadhay hees hawleedyada hees ciyaaraha buraanbur waxyaabahaas kale oo dhan ay suugaanadii hore ee Soomaaliyeed ka gabiyeen haddana gabayga iyo geeraarka ay markasta mudnaanta siin jireen waxay yiraahdeen gabaygu waa boqorka maansada waana kan ugu shuruudaha iyo xeerarka badan uguna meeriska dheer uguna qurxoon way jirtay xilliyada kamid ah oo uu ahaa kan loogu mudansiin badan yahay gabaygu sataasi waxa ay ku xirneed dhadhansiga suugaaneed ee dadka xilligaas joogay suugaanta ka dhexdhansanayeen iyagoo gabayga in badan kaga arki ogaa kuwa kale halkay wax kaga arki lahaayeen maanta waxba gabaygu ma dheera godadka kale oo hadad god kale ka gabadiya dad gabayga caadiga tiriso waxay ka dhigan tahay isla suugaantii umad samaysay waxbana ma dheera taalidigeeda waxa ka muuqasho badan saarka jiiftada iyo heelada ya ka muuqasho badan in fara badan gabaygii waayadii hore ugumana xeer badna gabaygu ee god kasta waa shardi yeesho habdhac iyo xaraf raac waa shardigiisa weyn inuu yeesho sida uu gabaygu leeyahay uguma meeris dheera gabaygu waa godad badan ayaa ka meeris dheer sida kabada oo kale ugumana hab qurxoona oo ma jiro halbeeg quruxda dhismaha suugaanta Soomaaliyeed ay leedahay yacni waxay dadka abwaanadii hore ama abwaanadii bay nagu yiraahdeen inuu gabaygu yahay boqorka maansada isagu meersdeeda ugu qurux badan laakiin intaas midna ma aha nolosha casrigaana gabaygu waxba kama aha iminka oo hadad gabay tirsiya dad mid kala tirsaba labaduba doorkii suugaaneed
وعياريان gabayga geeraarka jiiftada haanta saarka sabaalaha candalulada heelada iyo godadka kaleba waa gal ama nashqad tixeed uun oo nuxur lagu soo gudbinayo suugaanta dhararka iyo macnaha waxa uu yeelaa ma aha galka ay ku jirto oo kaliya balse waa duluucda ay xambaarsan tahay suugaantu farshaxanka humaaga xulashada erayada iyo shucuurka ay gudbinayso sidaas daraadeed waxaa la helayaa jiifta boqolaal jeer ka sarreysa gabayga ka sarreysa baa la helayaa markuu dhegnimada ka keentay in gabaygu liin baxo waxay ka dhigan tahay markaas in markasta ay suugaantii Soomaaliyeed ay ka sii hadhayso suugaantii keentana ay ku sii hadhayso qodobka afraad ay tahay in wax laga bedelo waa humaaga raacatada abaankii hore Soomaaliyeed marka uu sawirayo ama uu eray sameynayo waxa uu muujinayay waxyaabo fara badan horta sawiris maxaa la yiraahdaa maalin buu macallinkaygu wuxuu i weydiiyay luqad maxaa la yiraahdaa markaas waxaan garan waayay si aan ugu falsafadeeyo ama aan ugu dhigay markaas wuxuu yiri luqad waxa loo yaqaan qaabka aad wax ku fahansiin karto ama aad sawir ku sameyn karto abaankii Soomaaliyeed marka uu dadka Soomaaliyeed luqadda suugaanta kula hadlayo wax fahansiinayo waxa uu ku soo qaadan jiray humaaga raacatada iyo xoolo dhaqashada iyo geela iyo wuxuu tusaale u soo qaadan jiray udulkii wuxuu soo qaadan jiray haamii wuxuu soo qaadan jiray dhiilkii sidaas darteed ayuu lahaa raaga ugaas lahaa sida koorta yucub oo la suray koroma boobaal ah ama geelka reeb oo nirgaha laga kaxaynayo ama beelo kaynaan ah oo kuru hayaamaya xalay kolol ay gimladin kaamil reer hooye muxuu markaas abwaankani muujinayaa interbeamka markaas inoogu dhigayaa qaabka humaaga raacatada inoogu sameeyay inta markaa humaag ahaan inoogu faahsiinaya wuxuu markaa leeyahay koor dhawaaq dheer oo lagu xidhay ratiyo layliyo ah ama halo nirgihii laga reebayo oo ololaya ama beelo habqan ah oo colaad ka hayaamaya sida intaasba u gurxan iyo qaylo badan yihiin ayaa annad saahayga xalay meel dheer laga maqlayay intaas marka Soomaaliga aan kugu sheegay ayuu taariikh gabayga inoogu soo gudbinaya qaabkaas oo markaa abwaanadii hore koor iyo waxaas oo dhan ay adeegsan jireen inkastoo adaba suugaan ahaan humaaga noocan ah uu qurux badan yahay haddana taasi ma aha in inagu qasabto inaan u helowno noloshaas hore oo ay dumar kasta xiiso u qabno nolosha reedmiga qasab la inaga dhigo noloshaas hore imka laga soo gudbay kadibna ay suugaanteena oo dhanba u afduubnaato godkii kaynta iyo duurka suugaantii duurka ay afduubnaato xoolo raacistu adaba waa hab gaboobay oo imka laga soo gudbay oo hab primitive oo bilab jooga weeyaan oo ay ku dambeeyaan habab badan oo laga horumaray ugu yaraana haddii aynan xoolaha ka maarmin waa aynu dhaqanaa ma garan karo in markaas abwaanada Soomaaliyeed ee qadda nolosha hore ay imkaani dadku wada fahmaynin imika ku soo celcelinaya ma garan karo noloshaas raacataduna ma mudna in loo hiloobo waayo dhaawac weyn ay u geysatay ilbaaxnimadeena suugaaneed dawladnimadeena iyo horumarkeena intaba dib bay u dhigtay markaas aynu hilowno nolosha dambe waxa ka dhigan tahay markaas nolosha casriga ka sii hadhayno macnaheedu kama hadlayaan waxa diinteena ka baxan lagiisay dhaqan laga soo baxay markasta hadii suugaanteena u sii afduubnaato waxay ka dhigan tahay waxyaabo fara badan nagu dhaacayaan haddii humaag la muujinayo waxyaabo fara badan oo imika dee lagu sawiri karo baa ka jira nolosha magaalada dhan waad ku sawiri kartaa waxaad ku sawiri kartaa waxyaabo wax jira miyiga iyo magaalada lagu muujin karo oo biyo socda iyo wabi iyo buur iyo dayax yacdaan kuwaas humaag waa lagu muujin karaa laakiin humaagii raacatada markasta uu dubiyo alool iyo dhigo lagu soo cololiyo waxay ka dhigan tahay in xagaas laga baxay qodobka shanaad ay tahay in wax laga bedelo suugaanta Soomaaliyeed laga koriyo si loo gaadho waxay ka dhigan tahay erayada abaaday ama erayada gaboobay gabiya badan ayaa iyagoo ku dayanaya raggii hore oo imika jooga waxa ay gabayadooda ku soo xusayaan erayo aanay dadkan imika fahmiinba ama aanay fahmi karin waayo abwaankii hore gabayada uu gabigiisa u adeegsanayo waxay ahayd erayo uu si maalinna u adeegsado bulshada loo wada fahmayo golaha uu gabayga ka tirinayo erayo laga wada fahmayay buu tirinayay oo dalasla bariga la isticmaalayay laakiin dadka aynu maanta u gabayeynaa ama abwaanka Soomaaliga ah maaso u tirinaya wadad Soomaaliga ka yaqaan inta biyaha ku cabaan bis ka garanaya sidaas daraadeed qasab ma aha markasta erayo aan la garanayn inaad gaadho inaad soo qabato wuxuu ku oranayaa abwaanka Soomaaliga dad weydiiso maxaad erayadan aad dadagayna bulshada fahmaynin ama gaboobay aad u adeegsanaysaa wuxuu ku oranayaa afkii baan kaydinaya laakiinse doorka abwaanku ma aha inuu afka kaydiyo laakiin waa inuu xog iyo nuxur ku soo gudbiyo suugaanta ma weeyaan afkaydinta habab kale oo loo kaydin karaa way noqon kartaa laakiin erayada abaaday hadaynu markaas ku sii dhaganano waxa hadan dib inoogu celinayaan noloshii hore imka waa qodobadii hore ka soo sheekeynaynay ee noloshii raacatada in humaagidii raacatada wax lagu muujiyo markaas erayadii gaboobayna in meesha laga saaro wax la fahmi karayo imka waabanka Soomaaliya ku gabiyo si loo gaadho suugaanta ka loo gaadho oo suugaanta kaynta looga soo baxo intaas aynu ku soo gabagabeynayna muuqaalkan kulli waa iska aragtay dad fara badan hore oo maqaal ka qorayna aan soo akhriyay in salaamatillah wa maasantii